السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dad waxa ugu caqli badan kan adduunka ka taga inta aysan iyadu ka tagin rabbigiisana raali geliya inta uusan la kulmin qabrigiisana ifista inta uusan gelin ninka biyaa ah ayaa yiri isaga oo la hadlaya wiilkiisa wiilkaygiiyo bini aadam waxba ha weydiisan allihii aan albaabadiisa la xirayn wax weydiiso bini aadamka marka aad wax weydiiso wuu ka xanaaqaa laakiinse rabbiga haddii aad wax weydiisan weydo ayuu ka xanaaqaa quruxda hantiilaha waa deeqsinimo quruxda faqiirkuna waa qanacsanaan quruxda dumarkuna waa dhowrsanaan haddii uu jiro qof adiga ku jecel waxaad tahay qof nasiib badan haddii qofkaasi jecelkiisa dhab ka yahayna waxaad tahay qofka ugu nasiibka badan qofka noloshaada muhiimka ku ah ma ahan qofka aad dareento joogitaankiisa ee qofka aad dareento maqnaashiyihiisa jacaylku waa fure wuxuuna furaa albaab walba oo farxadeed jacaylku ma lahan guul iyo guuldaro keliya waxaa kugu filan in aad wax jeclaatay ninka dumarka ula dhaqma sida boqorad oo kale waxay cadeen buuxda u tahay inuu ku soo koray gacanta boqorad kale madarasadu waxbaan ka baranaa kadib baana la imtixaamaa laakiinse noloshu wayna imtixaantaa kadib ayay waxna bartaa caqliga caafimaadka qaba wuxuu ku jiraa jir caafimaad qabo shaqada aad qabato qorshe la'aan waa sababta koowaad ee fashalka marka aan marayno dariiqa guusha kolba wixii aan filanno ayaan helaynaa awooddaada oo dhan isticmaal ka bilow meel hoose laakiinse ka fikir meel sare in aad gaarto ka gudub caqabadaha waxa aad haysato oo dhanna maalgasho mar kasta ahaaw mid dhaqaaq badan una diyaara dhib kasta laakiinse ha oggolaan in dhibkaasi kaa joojiyo hadafkaaga qofna ha siin qadarin ka badan inta uu mudan yahay meesha aad joogto haddayna ku cajab gelin u istaag in aad beddesho adigu ma tihid geed meel ka baxay